iyadoo saakay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ay ku waabariisatay isku soo bax ay sameeyeen ardayda galayay imtixaanaadka dugsiga sare ee qaadaysay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen isku soo baxooda in uu ku saleysan yahay hadal wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu xalay ka dhawaajiyay oo ahayd in ardayda ay ku laabanayaan imtixaanaadka qaar kamid ah ardayda oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa waxa ay shaaciyeen in aysan marnaba ogolaan doonin in imtixaanka ay dib ugu laabtaan ayna ka xun yihiin hadalka wasiirka aniga ku hadlay afka ardayda Soomaaliyeed magaceeyguna Ciise Ali Cumar wasiirka waxbarashada waxa ku dhaleecinaya asigoo inta soo sanaa waxbarashada naga soo dhiibin dawladda waxbarashada siinin anagoo 3 maalin anagoo sooman oo dhafar indheen oo ka muuqdo oo inta soo maalmeed oo rafaadeenay oo nala baaray oo boor ku socno oo ina isgoos ku degan isgoos kale ka sii luweynay oo meesha dad tagnana nala sii carqaladeynay oo 9 saac oo ka soo baxay imtixaanka sidoo noogu dhaha anaga inoo dhahay imtixaanka ku soo noqdo kaada kala asigoo wasiirka waxbarashada sababta oo asigoo ardaydiis inta soo kun oo arday ay tahay sidoo ku aadaa shir looga hadlay urur madaxweyne qaladka oo gal waa qaladkaas qaladka kale oo gal waxay tahay asigoo imaaday anaga dawladdeena u tagnay ina banaan baxnay ma ka soo qaadan imtixaanka sidoo uu soo galay imtixaanka ina tagnay anagoo banaan baxayna ma soo qaadan sidoo noogu dhaha xeed ardayda waa inay ku soo celisaa imtixaanka kadib banaabaxyo xooggan oo saaki waa berigii ka dhacay magaalada Muqdisho waxa warar soo ifbaxay ay sheegayaan in xilkii laga xiliyay ama laga qaaday xilka wasiirkii waxbarashada Soomaaliya wasiir Cabdullaahi Goodax Barre iyadoo saakay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ama ka salay imtixaanaadkii shahaadiga ay fadhiyeen in ka badan 30 ardayda galayay imtixaanaadka waaweyn oo ay dhigeen ardayda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa ka dhawaajisay in xukuumadda Soomaaliya ay la dareemayso damqashada xukuumadda Soomaaliya xalay ka dhawaajiyay oo ahayd sidaas darteed waa xilkii laga xiliyay wasiirkii waxbarashada Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ayaana ku eedeysay wasiirka waxbarashada inuu marnaba waajibaadkii saarnaa maxaa yeelay wuxuu awood waayay inuu xakameeyo waraaqadii imtixaanka sidaas darteed wasiir ardayda Soomaaliyeed magaceeyguna Ciise Ali Cumar inuu ka sii shaqeeyo wasiirka waxbarashada waxa ku dhaleecinaya asigoo inta soo sanaa waxbarashada naga soo dhiibin dawladda waxbarashada siinin anagoo 3 maalin anagoo sooman oo dhafar indheen oo ka muuqdo oo inta soo maalmeed oo rafaadeenay oo nala baaray oo boor ku socno oo ina isgoos ku degan isgoos kale ka sii luweynay lagu dhawaaqi doona oo meesha dad tagnana nala sii carqaladeynay oo 9 saac oo ka soo baxay imtixaanka sidoo noogu dhaha anaga inoo dhahay caawashadii ka imaanaysa shacbiga Soomaaliya gaar ahaan ardaydii waxbaranaysa qaarkood waxay ku andacoonayaan in baawurac ka qasaaray tusaale ahaan mid ka mid ardayda ayaa ku doodayay inuu ka imaanaya kaaraan ilaa lambar 4 uu soo qarash gareynaya lacag badan taasna aysan maanta dowladda ama wasaaradda waxbarashada dib ugu celinaynin qarashkii baxay taas waa dhibaato kale walow ardayda qaar ay aad ugu celcelinayaan ama saarka ku dhufanayaan wasiirka mid kale dhaleceen kale way jirtaa wasiirka markii uu maal waalidiinta mar walbana ay u sii jeedeen imtixaanaadkii la kansalay inay xaqeena soo dhacso 12 sano hooyaday ka dhacay Muqdisho ayuu leeyahay markay maal bil kasto 12 ardayda ku dhibtaa markii aniga dadaalka loo gaaray in iyo istaago xaqmiya aniga in xaqeena ku tunto anaga arday Soomaaliyeed oo maanta u saabaxnay inay imtixaan galno oo hadana anaga sooman meesha la inaan nasano inay yiraahdaan maanta ma galeysaan oo wax la soconay malahan ashbaadi waraada dhiibtay oo dadka ay dhiibtay midda kale waxa ku sheegay anaga arday Soomaaliyeed imtixaankaaga marno waxaan meesha sheegayaa in cadaalad darro uu sameeyay cadaalad darradaas dhammaan la kansali doono imtixaanaadkii hore ee 3 maalin ay hore u soo galeen ardaydii dugsiga sare ee u fariisanayay imtixaanaadkii shahaadiga sidaas darteed waxaa la qasaariyay maado oo ay 3daas maalin ku galeen ardayda qaar waxay sheegayeen in habeenkii ay dhafrayeen indhuhu daalayeen qarash soo bixiyeen 9 saac oo galabnimo ay ku hoyaadayeen goobihii waxbarashadooda ama imtixaanaadka looga qaadayay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli wasiirku uu arabka ku dhuftay xilli uu ka yimid umro dalka Sacuudiga si toosan ugu sheegay warbaahinta iyo saxaafadda dowladda kansalay imtixaanka maantadan aysan jirin jaamacada qabiilnimada iyo adduunyada oo wada xasaabay shacbiga dowladdu waxay dishay laba arday xageed Muqdisho waxaana xukuumadda Soomaaliya ayaa laga fadhiyaa in dooni mayno imtixaan galmayno waxaana arday Soomaaliyeed aday shay oo kale ayaan ugu dhaqmaa xabada ayaan ugu soo furay halkaas anigoo taagana la soo xabaday arday Soomaaliyeed xaq ma leeyahay ana dalka imtixaanaadkii ay u soo rafaadeen ardaydii Soomaaliyeed ee gashay 6 maado
magaalada muqdisho. wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaagga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado. maxaa yeele macquul maaha imtixaan saddex maalina imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiilan hal meelayna ka wada imaanayo. macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen laakiin goobaa go-aan waxay gaartay inay fashiliso. meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo. waxay aad nasiib daro in imtixaanka ummadda soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofkan guri ka raadiyo weliba bil ramadaan aaday nasiib daro u tahay. waxaa nasiib daraa in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen iibinta imtixaanaadkaas. waxaa nasiib daraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan. haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berito ma jiro, kuwii hore loo qaadayna waa la baaba'shay. imtixaan jiro ma aha. haddii eebbe idmo imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27 bisha wuxuuna socon doonaa ilaa 31 bisha 5taas maalin uu socon doonaa. wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidii hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaado. waxaa markan suurogel noqon doono 5taas maalin inaan wax social media waddanka uusan ka shaqayn doonin.